annaguna intii aan joognay sanadkii 3 bilood soo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa shacabka Soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad loo siin lahaa maalin iyo habeen waxaan ka fikiraynay sidii aan ugu keeni lahayn cadaalad ay ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fududeeyo cadaaladuna waa ognahay waa aasaaska dhaxaadka dalwi haddii duusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummadana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad waana xaqiiqa ummadeenu mudooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeyn in loo baahan yahay dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inay noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameeyno golahaas adeegana mas'uuliyadiisa uu la wareego si cadaalad u noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kale aan doonaynaa inaan sameeyno guddi dib u eegis ku sameeyo dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo oo gacan ka siin doona insha Allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd haduu ay biiraahdo hawshan hawl sahlan ma aha annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo koow cadaalad ka tahay inaan saxno si ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno haddaysan cadaalad jirin guul ilaahayna siin maayo noon naxariisan maayo maxaa yeelay mas'uuliyadda koowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda way haddii aadan cadaalad lahayn ama aadan cadaalad samaynin amni ma dhisi kartid saas darteed gudoomiye mar kale annagoo dhan waa kugu duceynaynaa hawshan hawl sahlan ma aha laakiin waxaan hubaa inaan la imaanayso daacadnimo iyo qalbi wanaagsan annaguna aan ku garab taaganahay wax alla wixii aan ku tari karno aan ka caawin karno aan sameeyno ummadda Soomaaliyeedna ay gacan ku siiyaan ilaahay inuu ku fududeeyo oo mahadsantiin kulligiin